nagu isbaaraan qaadnay waajib baynu ku tahay aan qaadno waa la hadalnay xukumo qaadi karno laakiin ciidankii ma guurin tiraafiyada xasaska buuxa ciidan baa degan xaggana waa ka degan magaalada halkaana waa ka degan magaalada gudaheeda waa ciirasa dad odayaalana waa ka warqabnaa habeenka diqraad xaafada qaar baan la mari karin waxa keenayna ciidamada degan degmada aan burtin la gudoomiyeeda iyo gudoomiye ku xigeenkeedu laba beelood ba kala imaan jiray laba beelood ma sheertan iyo horta leeyahay wax isku khaldan ma ahay waliga taasay hadda iyadoo antii la guuro codna lagu kala qaaday baa la ma jeerteen baa la isku daray warku cad yaa fiican taas waxaan qabaa dibkii ka yimaad cid ka shaqeysay baa iska leh anagu isbaaradii waa qaadnay haddii aan lagu soo celin wax walba meeshoodii waxa dhacayna aan laga fiirsanna isbaaradiina dib bay u soo noqonaysaa wixii dhacana mas'uuliyadooda waxa qaadaya maamulka Puntland madaxweynaha oo dani madaxda u yahay magaalada waxa degan waa la yaqaan hadalku inuu cad yahay fiican ma jeerteen iyo awrtab la degan awrtab la gudoomiye ku xigeen bay leeyihiin ma jeerteen gudoomiye leeyihiin ama waxa weeye sheeg maxaa la yiraahdaa jifida ugu yar ha u qaado ama jifida ugu badan ha u qaado hadda gudoomiyahooda anagu kuma haysano ku xigeenkayagana looguma dari karo beesha awrtable dhacdadan ma ahan dhacdadii u dambeysay u horeysay ku dhacda waxa weeye xubintii beek baa laga kansalay oo gabar warsangeliya lagu bedelaan ognahay waxa la bedelay si sharci darro aan wax xeerkii iyo sharciga waafaqsanayn xubintii gaalkacyooda maxkamadda xukuntay baa lagu celiyay reer kale dadkii ku yimi codka xorta ah geedi caanala baa la sheegay waxaan ka baqayaa inuu isu bedelo geedi dhiig leh sababtaasoo kalifaysa waxaa loo maamulay doorashadii xor iyo xalaasha ahayd si aan dastuurka iyo nidaamka iyo sotokuwashkii wax loo qaybsan jiray midna waafaqsanayn haddii khalad dhacana khalad haddii lagu saxo dhibtu way weynaanaysaa buurtinle golihii deegaanka oo laga doorto qof iyo cod ku soo baxay oo ayan hay'adna fangaraynayn ururna fangaraynayn ee dhaqaalahooda iyo jeebkooda ku soo baxay oo ay nin walba intaasoo kun ku soo baxay in la yiraahdo korka waxa la idinkaga keenaya waxaynaan idinku mudnayn oo shaqaysan oo maamulka Puntland heerka u yaal iyo kan dadka dhexdiisa u yaal midna waafaqsanayn waa qaadan weynay annagu taa la yaaban haddana shacabkii baa gadooday ciidamada isxil qaamay oo ka xumaaday waxa dhacay ayaa wadooyinka xiray buurtina dhanka gaalkacyoodna waa ka xirantahay dhanka goorona waa ka xirantahay markaan ka baqnay inay sidaa darteed shacabkiina ku dhibaatoobaan dhiigna ku daato waxaan go'aansanay inaan hadallo anigu waxaan ka mid ahay xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Puntland la soo doortay aniga iyo kuwa kale ee dhinac taaganba waxaan qaadnay isbaaradii taalay 3 qolay isbaaradaas waxaa dhigtay ciidamo gadoodsan oo ka gadoodsan wax qaybtii sidii ay ahayd iyo dastuurku sidoo kale labada waxaan hayn dad intay ku dhicin ka gadoodsan waxa kale oo dhacay Puntland dhexdeeda anagu haddaan beesha Yuusuf Daarud waxaan ka tirsanaynaa dhacdooyin fara badan oo isdaba jooga kuwaas dhalinyarada iyo ciidanka iyo gabdhaha iyo odayaasha iyo xildhibaanada kulligooda ka kacsanna anagoo ka xanaaqsan oo taa ka kacsan oo ku aamusan oo doonayna inaanu dawladda kala hadalno haddana isbaaradan iyo taxaga talabaduba inay dhibkana baan ka baqnay anagoo shacabka u naxariisanayna dhiigga inuu daato qarka ay u saadheen oo ka maamushay in dhiig la daadiyana doonayna inaan baajinayna waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku oranaynaa dawladda Puntland madaxweynaheeda ku xigeenkeeda gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka dhamaantiis haddii dadka iyo dalka aad u dhaqanaysaan ka daaya meeshaad wax ku wadaan dib u soo celiya xaaladda anagu isbaaradii waa qaadnay haddii aan lagu soo celin wax walba meeshoodii waxa dhacayna aan laga fiirsanna isbaaradiina dib bay u soo noqonaysaa wixii dhacana mas'uuliyadooda waxa qaadaya maamulka Puntland madaxweynaha oo dani madaxda u yahay baa qaaday wixii dhacay mas'uuliyadooda anagu hadda mudankayagii baan marnay isbaaradii waa qaadnay ciidankiina meeshu degan yahay waana uu deganaan doona ilaa lagu soo celiyo qaybtu meeshii ay lahayd salaanka diiwaaniga Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Ciise kana mid ah odayaasha degmada Burtinle ana golay deegaanka ee la soo doortay oo qof iyo cod lagu soo doortay kamida
galabtay waxaan halkaan u nimid anagu gaar ahaan waxaan ka soo baxay xisbiga mideeye muddo waxaan ka tirsanaa xisbiga ka waa ka wareega mideeyaan u wareeg haddaan mideeyana siyaasadayda waa caddahay qaabka loo maamulay oo dhan baa nala khaldan waxaan aaminsannahay dastuurka la furay buu khalad ahaa xisbiga soo baxanaya 3 ahaayeen waxa la furay oo hadda dhowrkii la sheegayana xisbi ahaan annagu waxaan aaminsannahay inaysan waafaqsanayn sharcigaba sababtoo ah sharciga dib looma raaco 25kii bishii lixaad baa doorashada la bilaabay dastuurka Puntland wuxuu ahaa 3 urur oo sarreeyay soo baxo annagoo saa aaminsanayn baa waxa la yiri doorashadii marka xildhibaanada soo baxeen waxaan sugaynay annagoo saa u aaminsan urur ahaan baa aaminsanaa waxaan qabnay deegaamada ururadii soo baxay inay is doortaan oo ciiday degmadu doonayso xildhibaanaas u arkaan inay degmada masiirkeeda iyo danteeda ka turjumayso inay doortaan saasaan aaminsanay ma ay dhicin ee waxa dhacday in la soo magacaabo oo xisbiye isku tagtagay oo waliba golihii deegaanka degmada Burtile markaan is wareysanay wax tala aan laga siin in loo soo magacaabay intaas oo dhan annagoo qabno isla waxba saxmi doona bulshadii baa kacday odayaal baan nahay xildhibaanaan nahay 2023 Puntland isbaar inay soo noqoto walaahi aad baan uga xumaa in isbaar soo noqoto aad iyo aad baan uga xumaa iyadoo qabiileysan inay soo noqotaan aad baan uga xumaa haddii inta 27 xubnood sanduuq la dhigo ay laba walaalaa doortaan doorashada xalaal qof iyo cod aan arkinay waan ku qancinahay waana soo dhaweyn lahay laakiin hadda waxa bilowday waxaan dastuurkii qof iyo codkii iyo doorashada xalaashahay oo dadka loo sheegsan waafaqsanayn bulshadiina iska horkeenaya saami qaybtii hore ee Puntland khilaafsan tusaale ahaan xeer baalinada Puntland madaxweynaha meel buu ka yimaadaa gudoomiyaha baarlamaankuna meel buu ka yimaadaa madaxweyne ku-xigeenkuna meel buu ka yimaadaa wax isbedel ma ogin degmada Burtile gudoomiyaheeda iyo gudoomiye ku-xigeenkeedu 2 beelood ba kala imaan jireen 2 beelood ma jeertan iyo horta leeyahay wax isku khaldan ma ahay waliga saasay hadda iyadoo antii la guuro codna lagu kala qaaday baa la jeertan baa la isku daray warku cad yaa fiican taas waxaan qabaa dibkii ka yimaad cid ka shaqeysay baa iska leh haday ka tahay iyo haday sinac tahay iyo haday ifiya tahay iyo haday tahay wasaaradda arrimaha gudaha haday tahay arinta waxa in laga fiirsado dadku waa la guuray baa leeyahay geedi cidna rarasa cidna dejinayso ma waafaqsana waxaan qabaa arinta laga fiirsado annagu isbaaraan qaadnay waajib baynu ku tahay aan qaadno waa la hadalnay xukuma qaadi karno laakiin ciidankii ma guurin tiraafiyada xasaska buuxa ciidan baa degan xaggana waa ka degan magaalada halkaana waa ka degan magaalada gudaheeda waa ciirasa dad odayaalana waa ka warqabnaa habeenka duqraacda xaafada qaar baan la mari karin waxa keenayna ciidamada degan wasaaradda waxa rabaa amniga inay ilaaliso bulshada isku wada jirkeeda inay ilaaliso waxa la wada leeyahay in la ilaaliyo intaasaan ku baaqaynaa aad iyo aad baa mahadsantiin magacaygu waa Cabdulqaadir Xanan Jeex waxaan ka mid ahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burtile ee dhawaan lagu doortay barnaamijka cod iyo qof waxaan ka tirsanahay ururka Sincad waxaan hadda ku sugnahay dhinaca waqooyi ee magaalada Burtile gaar ahaan buundada caanka ah loo yaqaan 3 qolay halka waxaan ku gaarnay xaalad ka taagneyd xaaladaas oo ahayd xaalad ciidan iyo isbaaro taalay runtii ciidankii meesha joogay waa joogan waa ka qaadnay oo isbaaradii meeshan ka qaadnay laakiin ciidankii meeshiisii uu joogaa ciidankaas waxay ka gadoodsan yihiin diidan yihiin waa doorashada la rabo inay ka dhacdo degmada Burtile dhawaan doorashadaas oo la yiri xisbiyo garow jooga wax kala bedeshay haddana waxa kala bedeshaan haday ilaalin lahaayeen nidaamka dastuurka Puntland iyo midka qabiilka labadaba waxba ma taqaanaa waa la qaadan lahaa meeshan degmada Burtile ah ciidankan gaduudsan waa ciidan beeleed ay leedahay beesha Yuusuf Daarood Awrtable waa beel weyn oo degta geyga Puntland Soomaalida iyo waxa weeye maxalliga degmada Burtile si xoog loo degan ciidanka waxay ka gadoodsan yihiin oo diidan yihiin waa barnaamijka cod iyo qof hadii loo guuray
micnaheedu ma ahan in xoosaadkii qabaa'ilku laga guuray laakiin waxaan moodaa iyadoo ay saa tahay oo aan hoosaadkii qabaa'ilka laga guurin oo aan ognahay magaalooyinkii doorashooyinka laga soo qabtay sida Gaalkacyo, Galdogob, Tawfiiq iyo Xarfo intaba in la siiyey qoladii gudoomiyaha lahaydna gudoomiyaheedii qoladii ku-xigeenka lahaydna gudoomiye ku-xigeenkeedii la siiyey baan waxaan haddana qaadan weynay oo ciidanka iyo annaga xildhibaanada oo ku soo baxnay cod iyo qof oo beesha Awrtable ka soo jeedna waxaan qaadan weynay in la yiraahdo gudoomiyahana nimankii lahaa baa leh ku-xigeenkina waa loogu diray degmada Buurtile annagu haddaan xildhibaanada nahay ka soo jeeda degmada Buurtile gaar ahaan beesha Yuusuf Daarood waxaan qabnaa oo aan leenahay gudoomiyaha ciddii lahaydna ha ku tartanto haddayse ku tartamayna ciddii loogu soo magacaabay ha qaadato laakiin gudoomiye ku-xigeenku tartan ma ahan haddii cid ku tartamayso saddexdeeda xildhibaan baa ku tartamayna haddii mid loo tanaasunayana saddexdeeda isku tanaasuleyna laakiin ma naqaano mana qabno xisbiya wax kala bedeshay oo gudoomiyihiina waxa la siiyey reer baa la siiyey gudoomiye ku-xigeenkiina isla reerkaas loogu daray anagu xildhibaanadii codka ku soo baxay oo barnaamijka dhibaatada hadda ka taagan tahay ka soo meesha ku soo gaaray haddaanay waxaan wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha Puntland madaxweyne ku-xigeenka dhammaan gudoomiyaasha xisbiyada waxaan ugu baaqaynaa oo aan leenahay arrinta jirta oo taagan ee maxaa la yiraahdaa wax weeye gadoodka ciidamada iyo dastuurka maxaa la yiraahdaa barnaamijyada xeer jabinta qabaa'ilka iyo midda muxuu ahaa wax weeye ii sheegay kalaba waxaan leenahay waxa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda Juxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leenahay arrinta wixii ka dhasha wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyaasha xisbiyada baa qaadaya gaar ahaan waxa qaadaya xisbiga ka gudoonkeeda baa qaadaya arrintaas oo khalkhalka iyo khaaquulka ku keenay degmada Buurtile inuu gudoomiye ku-xigeenkii xubin Awrtable iyadoo joogta uu ugu daro isla xubin Majeerteena magaalada waxa degan waa la yaqaanaa hadalku inuu cad yahay fiican Majeerteen iyo Awrtable degan Awrtable gudoomiye ku-xigeen bay leeyihiin Majeerteen gudoomiye leeyihiin ama waxa weeye sheeg maxaa la yiraahdaa jifida ugu yar ha u qaado ama jifida ugu badan ha u qaado hadda gudoomiyahooda anagu kuma haysano ku-xigeenkayagana looguma dari karo beesha Awrtable dhacdadan ma ahan dhacdadii u dambeysay u horreysay ku dhacda waxa weeye xubintii beek baa laga kansalay oo gabar warsangeliya lagu bedelaan ognahay waxa la bedelay si sharci darro ah oo xeerkii iyo sharciga waafaqsanayn xubintii Gaalkacyooda maxkamadda xukuntay baa lagu celiyay reer kale waxa la sameeyay intaasoo dhibaato oo xilal siyaasadeed ah baa waxa weeye la sameeyay arrinta wasaaradda arrimaha guduhu hadday biri imaanayso degmada Buurtile iyo haddii kaleba wax ayadu ha ka qabato oo dhibaatada taagan iyada keentay dadka ha kala jihayso ciidamadaasna anagu hadda wadadii waa ka furnay laakiin ka qaad waxa weeye qaadistoodu waxay ku xirnaanaysaa insha Allah in waxa khaldan oo jira la saxo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh